gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriisu ayaa xarunta aqalka dawladda hoose xamar kulan kula qaatay injineer ka socday dawladda hoose ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kulankaasi oo looga hadlayay sidii Turkiga uu xoojin lahaa fulinta mashaariic cusub oo lagu horumarinayo wadooyinka caasimadda duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu ayaa ugu mahadceliyay dawladda dalka Turkiga sida ay uga qayb qaadatay dib u soo kabashada caasimadda dhowrkii sano oo ay Muqdisho ka howlgalayeen kulan kadib ayaa injineeradii ka socday dawladda hoose ee magaalada Istanbul waxa ay kormeer ku tageen xarunta bisha cas ee dawladda hoose xamar si ay u indhendheeyaan warshadaha soo saara laamiyada iyo agabyada kale ee lagu horumariyo bilicda wadooyinka Cabdixafiid Maxamed Xirsi oo kamid ah xubnaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa warbaahinta qaranka u sharaxay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiishii ka socotay dawladda hoose ee Istanbul maanta waxaan soo booqday injineer ka socda dawladda hoose ee Istanbul Turkiga waxaan joognaa xarunta weyn ee gaadiidka dawladda hoose ay ku yaaleen warshadaha lagu suubiyo laamiyada iyo interlog iyo tubooyinka bulacadaha dawladda hoose waxa ka go'an inay ay dhawaan kiciso warshadahaas si laamiyada magaalada Muqdisho dhexmara ay dadargelin ugu suubiso dhismaheeda iyo wadooyinka yararka ah xaafad dhexmara in interlog lagu suubiyo Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.